kadib bilo muran ah Abriil 15 2023 rasaas culus iyo qaraxyo ayaa ka dhacay Khartoum waa magaalo ay ku noolaayeen dad 10 milyan oo qof ah dhawaaqa rasaasta ayaa laga maqlayaa goobo muhiim ah oo ay ka mid yihiin xarunta ciidanka wasaaradda gaashaandhigga madaxtooyada iyo garoonka caalamiga ah ee Khartoum gegida diyaaradaha ee Khartoum waxay isu bedeshay qabrigii diyaaradaha waxa burburay maalinka ugu yaraan 49 diyaaradood waxa kale oo burbur xoogan uu soo gaaray ilaa 70 dhismo oo ku yaala garoonka diyaaradaha 14 milyan oo qof ayaa ku barakacay dagaalka sida ay sheegtay qaramada midoobay maanta Suudaan ayaan ku dulgoynayay soo dhawow kacdoonkii 2018 ilaa 2019 dadka shacabka ee Suudaan waxay sameeyeen kacdoon ballaaran kadib 30 sano oo xukunka uu hayay Umar Hassan al-Bashir sababta kacdoonku wuxuu ahaa sicir barar cunno la'aan cadaadis siyaasadeed iyo caburin Abriil 2019 militariga Sudanese Armed Forces SAF ayaa xukunka ka tuuray al-Bashir waxaana la sameeyay Transitional Military Council TMC xilligii ku meel gaarka ahaa sanadihii 2019 ilaa 2021 waxaa dhismay isbahaysi jilicsan waxaana la sameeyay golihii wadaaga ahaa ee rayidka iyo militariga Transitional Sovereign Council oo ay hogaaminayeen Abdel Fattah al-Burhan taliyihii SAF Maxamed Hamdan Daglo Hameti taliyihii RSF dhinaca rayidkana waxaa ka mid ah Abdallah Hamdog oo noqday ra'iisul wasaare ujeedadu waxay ahayd in dalka lagu hogaamiyo doorasho dimuqraadi ah muddo 3 sano gudahooda markan waxaa dhacay afgambigii labaad Oktoobar 2021 militarigii Burhan iyo Hamdeti waxay xukun ka tuureen dawladda rayidka ee Hamdog waxayna haqiyeen dastuurkii iyo wadaagii xukunka dadka shacabka ah ayaa mar kale kacdoon sameeyay waxay haddana dhashay kala shaki iyo kala tag u dhaxeeya Burhan iyo Hamdeti oo markaaba isku arkayeen laba awoodood oo aan kala dhicin iska horimaadkii SAF iyo RSF bilowgii dagaalka Abriil 2023 waxaa la isku qabtay RSF in lagu biiriyo ciidanka qaranka ku biiridoodana la dedejiyo 15 Abriil 2023 dagaal toos ah ayaa ka qarxay Khartoum iyo magaalooyin kale dagaalku si dhaqso ayuu ugu faafay gobolada Darfur Kordofan iyo Gazera RSF ayaa la wareegtay magaalooyin badan oo waqooyiga iyo galbeedka ah gaar ahaan El Fashir Wadmadani Salangi iyo Ganenna waxay gacanta ku dhigeen SAF bariga dalka gaar ahaan Port Sudan Atbara iyo Dongola Suudaan hadda waxaa ka jira laba awoodood SAF oo ku sugan bariga iyo waqooyiga Port Sudan xarun u tahay inkasta oo ay 10 cisho ka hor gacanta ku dhigeen caasimadda RSF oo gacanta ku haysa inta badan galbeedka iyo bartamaha Darfur iyo Gazera in kan badan 15177 weerar ayaa dhacay laga soo bilaabo Abriil 15 2023 ilaa Oktoobar 8 2025 ugu yaraan celcelis ahaan 24 weerar halkii maalin ciidamada Suudaan waxay fuliyeen 50% dhammaan weerarada la diiwaan geliyay kuwaas oo u dhigma 7500 halka RSF ay qaaday 38% oo u dhiganta 5291 12 ka soo hadhay oo u dhiganta 2386 weerarna waxaa loo aaneynayaa kooxo kale oo ay ku jireen maleeshiya beela Darfuriyiin ah kooxo ka dhaqdhaqaaqa gobolka Darfur iyo qaybaha kale ee dalka Suudaan waxaan ku muujinayaa meelaha ama magaalooyinka diriirta ugu xoogan ay ka dhacday anoo ku dulgeynaya maabka 18 gobol ee Suudaan Khartoum aan kuugu bilaabo waa caasimadda Suudaan waxay xudun u ahayd dagaalka waxaana ka dhacay 5519 weerar taas oo u dhiganta 49% dhammaan weeraradii la diiwaan geliyay inta ay diriirtu socotay waxay dagaalada Khartoum ka dhaceen jidadka garoonka diyaaradaha goobaha dadweynaha hadda waxa gacanta ku haya ciidamada qaranka ee Suudaan gobolka Gazera waxa uu koonfur ka xigaa Khartoum Gazera waa gobolka ugu ballaaran uguna beeraha badan Suudaan waa gobol muhiim u ah Suudaan waxa laga diiwaan geliyay 1480 weerar taas oo ah 13% guud ahaan weeraradii dhacay ciidamada RSF ayaa isku fidiyay dhinaca koonfureed ee gobolkan dagaalkii u horeeyay ee Gazera waxa uu ka dhacay 18 December 2023 waxauna ka dhacay magaalada madaxda xilliga RSF ayaa qabsatay Wadmadani oo ah caasimadda gobolka Al-Gazera kuna taala koonfur bari Khartoum qiyaastii 180 kiiloomitir u jirta waxay caan ku tahay beerista suufka iyo dalagyada kale ee uu waraabiyo mashruuca Gazera Scheme oo ah mashruucii ugu weynaa ee beeraha Afrika gobolka saddexaad waa waqooyiga Darfur gaar ahaan El Fashir waxaa ka dhacay dagaalo culus tan iyo bilowgii dagaalka waxaa haystay ciidanka qaranka Suudaan kadib markay kala wareegeen RSF waxaa ka dhisan xerooyin qaxooti ah dadka degani waa barakaceen burburka kaabayaasha dhaqaaluhu wuxuu la bidowday dagaalka isbuuc ka hor RSF ayaa la wareegtay waxayna ka geysteen xasuuq bahalnimo ah waxaa la sheegay inay ku dileen ugu yaraan 5,000 oo qof magaalada labaad ee waqooyiga Darfur waa Khartoum wuxuu dagaalku u horeeyay ka dhacay 30 May ilaa 4 Juun 2023 magaalada iyo xerada qaxootiga Kasaba waxay diriirtu u saameysay si foolxun barakac weyn ayaa ka dhacay magaalada waa meelaha ugu nasiibka xun caalamka magaalo kale oo waqooyiga gobolka Darfur ku taala waa Tawila wuxuu dagaalku ku fiday Juun 2023 waxaana ka dhacay barakac iyo weerar dad badan ayaa guryahooda ka cararay xaalad bini'aadantinimo oo u xun ayaa ka jirta RSF ayaa dhowr jeer weerartay gobolka waqooyiga Darfur waxaa ka dhacay 1388 weerar 12% wadarta guud ee dagaalada Suudaan ka dhacay magaalada Salinga oo ku taala Central Darfur wuxuu dagaalku ku fiday 31 Oktoobar 2023
gobolkani waa mid ku jira khatar dagaal waxaana ka socda barakac. Kadugli waa magaalo ku taala koonfurta Kordofaan xadka South Sudan. Wuxuu dagaalku ku faafay June ilaa July 2023. Wuxuu dagaalkaasi ku bilowday weerar iyo qaraxyo. Gobolkani kuma jira Darfur balse dagaalku si xoog leh ayuu u saameeyay. Xaaladda maanta Kaduglu waxay hadda ku jirtaa xugun military waxaana gacanta ku haya SAF ciidanka militariga Sudan. RSF-na waxay joogaan deegaanada ku xiran magaalada halka SPLM ay weli haysato qaybaha koonfureed. Waqooyiga gobolkan Kordofaan waxaa ka dhacay 463 weerar oo u dhiganta 3.5%. Sudan inteeda kale 26% ka soo hartay tirada dagaalka ayaa ka dhacay waxaana kamid ah meelaha kale ee dagaaladu ka dhaceen. Gobolka koonfurta Darfur waxaa ka dhacay 511 weerar oo u dhiganta 5%. Galbeedka Darfur waxaa ka dhacay 310 weerar oo u dhiganta 3%. Ugu yaraan 211,973 qof ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay guud ahaan Sudan, inkasta oo tirada dhabta ah ee dhimashadu ay aad uga badan tahay gaar ahaan marka la xisaabiyo dhimashooyinka aan tooska ahayn ee dagaalada aan ku dhicin. Dhimashada la diiwaan geliyay ee 211,000 kala barkeed oo ah 105,000 waxa ay ka dhacday magaalada caasimadda ee Khartoum iyo waqooyiga gobolka Darfur.